حفظ قرآنك ولا شيء ذا هجاكسن سي أظهر مرك وقارتو قب هجاكسن تقوضونا أهاتو لجركاقا هميقاقنا سريو قب هولسن qaybtii labaad ee su'aalaha anigoo si darandoori isaga daba keenaya sheekhuna si darandoori uga jawaabayo sheekh markaan yaraa waxaan la soo koray reer abtigay waxay odhan jireen inantan aabaheed ayaa fidriga sakaatul fidriga ka bixinaya markaan xaafadayadii ku soo noqday markii dambe waxaan ogaaday inaan aabahay fidridii iga bixin maxaad igula talin lahayd ama maxaa igu waajibay su-aasha kale waalidkay oo iga horgeeriyooday oo aanan u samafali jirin intii uu noolaa haddana dhintay subxaan allah maxaan u samayn karaa imika waan dareemayaa dembigii aan galaye maxaa imika xaqiisii aan u gudi karaa su-aasha kale ninkayga oon biil isiin xaq intee leeg buu igu leeyahay ifur haddaan ku idhaahdo ma dembi baan gelayaa sheekh su-aal kale qof dhintay qur-aan ma loo akhriyi karaa su-aal kale carruur agoon ah ayaan haystaa lacagta agoonta haddaan wax ka siiyo hooyaday oo indhala iyo walaashay oo cagala ma dhibbaa ku jirta goorma ayuu meherka gabadhu ay heshay sakada laga bixin karaa su-aasha kale sheekh waa inan waxaan u baxayaa waxbarasho dibadda ah maxramna ma haysto maxay diintu ka qabtaa su-aasha kale xaajigayga ama odaygaygu waysada ma iga jebin karaa su-aasha kale sheekh haddii dhafoorka aan iska gubo markuu qofku xanuunsado haddaan dhafoorka iska gubo miyaan ka baxayaa xadiidkii qoladii nebigu uu sheegay ee 70 kun ahayd ee bilaa xisaab jannada ku gelayay su-aasha kale waxaa xaafadda yaal buugaag iyo kutub badan oo uu lahaa odayaygii oo dhintay haddaan sadaqo ku bixiyo buugaagtaa ma dhibbaa ku jira sheekh su-aasha ugu dambaysa qaybtan labaad moobeel ma laga akhriyi karaa qur-aanka marka aan ku jiro wakhtigii aanan salaada tukanayn su-aasha sakaad firigayga yaa lagu leeyay intii aan yaraa ma reer abtigay mise aabbahay aabbaha baa lagu leeyay liyunfiq duu sacatin min sacati buu lahay qof waliba intuu karaya ha bixiya naftiisa iyo carruurtiisa haddii uu heli karayo wey haddii aanu heli karaynin waxba soo qallayn maayo laakiin haddii uu heli karayay inta aad yarayd waad u sheegi doontaa waana la soo xisaabin doonaa waana uu bixin doonaa haddii aanu bixinina adiga intood isu soo geyso inta sanadooda ay ahayd ayaad bixin doontaa waayo sakaad fidrigu waa faral wixii farala marka laga tagana ma dhace waa la qalleeyaa siduu nebigu yihi fadaynullaahi axaqu an yuqda xadiidkii saxiixa daynta ilaahay baa ku habboon in lasoo gudo la bixiyo waalidkii uu dhintay umanaan sama fali jirina maxaa yeelaa imikunka dabatag samee ducadana u badi sadaqadana u badi dardaarankiisiina fuli ehelkiisii xidhiidhi saaxiibbadiisii soo dhowee waxyaabaha khayr kale markaad ku dadaasho iyo xuquuqdii uu kugu lahaa waxaa la rajaynayaa inuu ilaahay samafalkaa kaaga dhaafo ninkaygu haddii aanu ibiilinin ifur ma odhan karaa waxaa fiican inaad sabirto oo aad dul qaadato waa xaqaad leedahayoo ilaahayna wuxuu uhi wa an tacfu aqrabu litaqwa inaa cafiska bixisaanba alla kacabsiga u dhow xaasaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxbaa isfuraya waxbaa isfasakhay way yarayd ama may dalbi jirin marka inta sabri karta sabir haddii laakiin aad sabri kari weydo isagoo waxaystana ogaan uu kuu qadinayo ehelka gaadhsii hadduu ehelku waxba ka qaban waayo garsoorka iyo maxkamaddaad gaadhsiin kartaa si markaa tallaabo ay uga qaadaan laakiin mar walba sabirkaynu horraysiinayna qofku hadduu dhinto qur-aanka ma loo akhriyay karaya
وما لورنا أنت قرآن كالآخرية إله وأجرك إيا ثوابك قرآن كجارسي علماء قيب كمذي وي قبان قارنوا ديدين سيدا إمام الشافعي وكلا وحاند مودين دليل كصائر وريمد لقى قياستون موياني دليل عطينا يقف كدنتين قرآن كالله آخرية مجره سيبا هدي العقل لقى قادنا ينا waxay culimadu isku waafaqseen inaan loo akhriyaynin marka waxaad ku dadaali doontaa sadaqada inaad u bixiso ducada oo lacaga aan kugu joogina inaad waqti walba u ducayso sidoo nabigu sheegay aw waladu saalihu yad'u lahu walad wanaagsan oo soo duceeyo qofku markii uu dhintay xoolaha agoonta ma ka siin karaa hooyaday iyo walaashay wax ma ka siin karaa agoonta aan hayeen hooyada wahay haddii ay wax u tarayaano dabcan ay u adeegayaano ay kula hayaan oo ay u nadiifinayaan oo iyagu ay de musaacidiin ku yihiin ay kugula dadaalayaan waxbay ka cuni karaan siiba hooyadu oo da iyaga ayeeyo waa habar baa la yidhaahdaayo habkay baraysa caruurta marka marnaba kama maarmayaan caruurtu wehelkeeda marka dadka wax ku taraya ee qaraabada ah waxna u keenaya wixii ay helaana ku soo darsanaya waxbay la cuni karaan waana dheefsan karaan ilaahayna wuxuu yiri wa intu khaliduhum fa ikhwanukum agoontu hadday wax isku darsataan oo kiinana laga cunayo koodana laga cunayo wax dhibi ma jiro meherkii ma lagu yeelanayaa sakadii may ku waajibaysaa meherkii oorida way ku waajibaysaa haddii ay ninkeedu heli karayo oo uu la diyaar yahay inuu siiyo oo iyadu ay markaa ku dayso oo ay ka qaadan weydo sanad walba waa ku waajibaysaa sakadii 3,000 4,000 oo dollar meelaha hadduu qiimihiisu gaadhsiisan laakiin wax yaroo kun iyo wixii ka hooseeya hadduu yahay marka qiimihiisa la eego saka kuma waajibayso waa deyn weeyo qof kastoo deyn ku leedahood ka soo qaadan karayso waa lagu leeyahay sakadii ila adiga u daystee su-aasha kale ahayd waxbarashaan doonaya inaan dawlad ugu baxo maxramna ma hayo ma tegi karaa ma tegi karaysa waayo maxramku waa waajib inay ruuxa dumarkii safarka u kaxaysato inantuna had iyo jeer fitnada ayaa u fudud inay ku dhacdo waanaynu aragnay hablo keligood intoo dabadda loo diray ku fitnoobay ama ragga ajaanibta ee shisheeyaha laga kari laayahay dabadaha markaan marana Soomaalidu waxyaabaha ay wiilasha jaamacadaha ku jira ka cawdaan waxa kamid ah hablaha la jooga oo ay ka reebi kari laayihiin shisheeyihii oo had iyo jeer isku dilaan marka inanta cirdigeeda ka muhiimsan waxbarashadeeda inay sharafteedu dhowrsoonaato aayaheeda iyo mustaqbalkeedu aan u dhaawacmin waxbarasho ku filan way ka helaysaa wadanka dhexdiisa waxa ka barato weysada ninkaygu ma iga jabinaya iyo mayaba culimadu way yiraahdeen laakiin qowlka daliilka badan waxa weeye inaanu waxba ka jabinaynin madaxa ma iska gubi karaa ama jirka meeshii xanuunaysa waad iska gubi kartaa waase laga fiican yahay oo siyaabaha la isu daaweeyo dabku ku jira rasuulkuna wuxuu yiri dawadu saddex bay ku jirtaa في شرطة محجم وشربة عسل وكية بالنار عبتانك ملبك iyo toobinka baalka la yiraahdo iyo dabka la isku dhajinayo umada idana dabka waan ka nahiyaya oo dadka qaar kood ba aaminsan dabku inuu wax bogsiyo oo waa kuwa yiraahdo dabka iyo cudurku meel ma wada fariista marka walkayu aakhiru dawaaba la yiraahdo waxa ugu dambeeyo weeyaan dabku Imraan ibn Hussein markii uu ma iskubaana nabigu wuu ogolaaday inuu iskubo marka in la isku daweyn kara halka laga qaadanaya laakiin laga fiican yahay ninkayga kutubtii oo qoray ama kutubta guud ahaanba u taala maktabadiisa haduu geeriyooday ma bixin karaa hadii agooni jirto maya waayo kutubtu waa maal waa xoolo waa dhaxal agoontii baa leh marka hadaa doonaysa inaad sadaqo u bixiso qiime agoonta wuxoodii kaash ku sii sadaqana u bixi kutubta laakiin adigoo aan wuxoodii loo celinin agoonta ama adigu aan u celinin dharkii odayga iyo kutubtiisii iyo qalabku ku shaqaysanayay iyo lagama bixin kara agoonta ila waa xoole hadii aan caado leeyahay mobilka ama telefoonkan gacanta quraanka ma ka akhri karaa hadii screenka uu saaran yahay halka shaashada uu ku soo saaran yahay quraanku misxafkun buu la mid yahay marka qaadistiisa iyo akhrintiisa midna sax maaha marka caado leedahay laakiin marka aad ka qaado screenka gudaha uu galo xusuusteenu la mid yahay marka waad iska sidan kartaa waxana fiican ruuxa dumarka intaanay daahir noqonin ay caadada leedahay inay ka warwareegto kitaabka qaadidiisa iyo akhrintiisa sida culimada islaamku ay u badan yihiin wallahu a'lam
runtii su-aaluhu aad bay u badan yihiin laakiin ta intaynu karno un baynu sheekha iyo waktigana waa ilaashanaynaa 10 kanaynu ku daraynaa inay noqotoba qof weyn ayaan ahay haddaan sariirta ku tukado macaadiba qof weyn oo hooyo ayaan ahay odayayguna waa mushaki acuudu billah diintana wuu caaya subxaan allah iyadoon baa laakiin tiri biilna ima siiyo maxaan sameeyaa ilmaha agoonkaa hooyada ama cidda tarbiyadaynaysaa ma ulayn karaan ama ma dili karaan xoolaha agoonta ma lagu qaadan karaa amaah walaashay ninka qaba ma ii noqon karaa maxram waqtiga xajka hadday walaashayna la socoto gabadhu markay daahirsanayso dharka ay xidhan tahay ee aanay waxba ka gaadhin dharkaa ma ku tukan kartaa oo daahir ma u yihi markay ardaydu qur-aanka subcinayaan aayadda sujuudda ma waxa ku sujuudaya uun ardayga ama qofka akhriyaya mise dhammaan inta barnaamijkaa ku jirta qofka lacag ii dhiibtay lacagtaasna aan ganacsi ku samaystay lacag buu ii dhiibtay ammaano ah kuma cadda ku shaqaysi buu yidhi iyo ha ku shaqaysan toona laakiin lacag buu ii dhiibay lacagtii baan deedna ganacsi geliyey lacagtii baa labalaabantay markay labalaabantay haddaan intii uu lahaana siiyo intii kalena aan qaato ma xalaal baa mise waa xaaraan hooyaday oo dhimatay allaha u naxariistee ayaa waxay samayn jirtay bisha ramadaan afur iyo casho bishaa ramadaan bay intaa samayn jirtay arrinkaa diintu maxay ka qabta waaye xijaabka rasmiga ah ee gabadha xadkiisu muxuu yahay keebaa fadli badan marka ilmaha yar loo wanqalayo in hilibkii oo qaydhin la qaybiyo iyo in la kariyo dahabka goormay sakadu ka baxaysaa dahabkaasi ma kii ganacsiga ahaaba mise waa kii la isku qurxinayay su-aashu may caddayn su-aasha kale inahaasaa ugu muhiimsan su-aal aada u fara badan oo soo noqnoqonaysaa jirta su-aashaasi waxa weeye waa duco iyo in la duceeyo caafimaad iyo balwadda iyo waxbarashada iyo taana waa qodobada sheekh khaliil ayaynu siinayno ducada iyo kelmadda khitaamka sheekh kusoo dhowo salaada sariirta ma lagu tukan karaa ta sunnaha ahaa sala joogga iyo fadhiga iyo jiifkaba qofku uu ku tukan karaa isagoo weliba kari karaya sara joogga laakiin ajrigiisi baa kala barhbaya hadduu kari karayo oo la fadhiisto qofku laakiin haddii aanu kiciddii kari karayn dee sariirtii iyo fadhigii wuu iskaga tukan karaa siduu nabigu u fasaxay cimraan ibnu xusein salli qaa'iman fain lam tastadic fa qaacidan fain lam tastadic fa calaa janbin sara joogga ku tuka haddaad kari weydo fadhiga haddaad ku kari weydo jiifka mar walba kari weydaa ku xidhan ninkaygu wuu shakiyaa diintu caayaa biil ma bixiyo balaayo dhan baad ku ururisay inay jirtiyeen kalena allahu aclam haddiise waxaasoo dhami ay jiraan waa musiibo weyn waxaanaan ku talin lahayn inaad waaniso haddii waanada u aqbali waayana dee ehelka la kaasho diintoo la caayaana kolley waa gaalnimo xaaskuna way ku furmaysaa dee xaaskii haddii uu ku celceliyo way furmaysaa mar walba culimaduna dee qaar ka mid a markaa uu diinta caayaabay kala tegayaan tanajazat ilfurqa qaarna ilaa ciddadaa la sugayaabay leeyiin almuhim waa mushkiladu weyn markaa waxaad la kaashan doontaa ehelkiisa iyo ehelkaaga hadday waxba ka qaban waayana garsoorka arrin miisaan la weeyo on lasfudaysan karin oo lagu wada noolaan karin waxaa hadduu saa u walaaqo saa daraaddeed meelahaasaynu ku talin lahay inaad la tagto agoonka ma la garaaci karaa marka waxyaabaha kale lagala quusto sida carruurtaada aad ula dhaqanto waad ula dhaqmi kartaa carruurteenna mar walba ma garaacnee marmar baynu wax yar ku dhufannaa
wixii xumaa uu joojin waaye marka agoonka qaacidadiisu waxa weeye sida kuweena aynu la dhaqanno baynu la dhaqmaynaa culays gaara saari mayno iyo cadaadis gaara siina dayn mayno oo dee waa ilmo yaroo si aan u anbanin lumin mayno ilaahayna markuu arrintaa ka hadlaya wuxuu uhi wallahu yaclamu almufsida min almuslix agoonka markuu ka hadlayay alla waan kala ogahay buuri ko ilmaha hagaajinaya iyo ka kharibaya marka kii hagaajinaya u danaynaya u noqo waa laga warwareegi marmarka qaarkood hadday kaliftana wax yaroon dhib lahayn waa lagu edbin karaa sida carruurteenunbuu la mid yahay ninka walaashay qabaa maxram ma ii noqon karaa maya maxramkuu noqonaya waa ka xurmadiisu mu-abad tahay marka isagana haddii uu imika ku furo iyada furo ay cadadbaxdo dee wuu ku guursan karaa marka dadka kale mooyaane kaasi kuma noqon kara maxram haddii laakiin fitno laga aamin yahay walaashaana ay la socoto waad iskala safri karaysa wax dhiboo kaloo jira aanu jirin ruuxa dumarka ah ee caadada le dharkeedu miyuu nijaasoobayaa qof kale ma ku tukan karaa ma daahir ba haa waa daahir rasuulku wuxuu yihi subxaana allahi ina almu'mina laa yanjus qofka mu'minka ahi ilaahay baa xumaan ka hufane jidhkiisu ma nijaasoobo haddaan wax ku dhacay jirin wayse la-aanta iyo jinaabada iyo caadada iyo dhiigga dhalmada iyo waxaasi dee haddaanu dhiig ku dhacay ahayn ma keeno inuu jidhkii nijaasoobay shay xadath la yidhaahdo cibaadada ka hor joogsanaya uunbaa meeshii yaalla mooyaane ruuxaa dharkeeda iyo jidhkeedaba waa daahir sida la ogsoon yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa waa la jiifsan jiray markaa ay caadada leeyihiin waxna may mu odhan jirin ama ismaydh ama aan ismaydho waxaa iyadana ku jirta haddii qur-aankii la akhriyayo oo qof akhriyayo qaarna dhegaysanayaan goobtii la sujuudayayna lasoo maro maka akhriyayuunbaa sujuudaya mise kuwii dhegaysanayayna way la sujuudayaan jawaabtu waxa weeye dhammaan way wada sujuudayaan oo mustamica iyo qaarigu waa isku mid qofkan akhriyaya iyo kuwa dhagaysanayaa labadaba waa isku mida way wada sujuudayaan waxaan hayay ammaano waan isticmaalay faa'iidaan ka helay yaa leh haddii ammaanadaa laguu fasaxay faa'iidada adaa leh haddii ammaanadii laguu dhiibtay wadiicada ahayd aada isticmaashayna iyadoo aan laguu fasixin oo xoolo fara badani ay ka soo baxeen qofkii ammaanada lahaabaa leh cala alyadi ma akhadat xataa tu-aadiya in allaha yaamurukum an tu-aaddu lamaanaati ilaa ahliha ammaanada hayo ehelkeeda gaadhsiiya baa layihi marka kii xawaaladda ama kii baanka ama kii bakhaarka ama kii dukaanka ama ruuxii dumarka ahayd qofkii kaashka loo hayay kuuhi ii hay haddaanad ka amahan oonad ku shaqaysan laakiin adigoo ka qarinaya aada iskaga shaqaysatay wixii ka soo baxay isagaa leh wuxuu kaa siiyo un mooyaane hooyaday baa sadaqa bixin jirtay rabadaanta uun afur iyo casho allaha ka aqbal hadday dhimatay khayr badanna way samayn jirtay laakiin way kala duwan tahay adigu waxaad samaynaysa iyo iyadu waxay samaynayso marka adiguna sidaadaad u samayn kartaa sadaqada ama rabadaan ha ahaato ama khayrkeedba ha ahaato wixii wanaagsanna waa la iskaga daydaa dadkii ay siin jirtay hadduu rabadaantii soo xaadirayo imanayo ha ka goynayna si waa shay khayr leh oo dadku ay u barteen xijaabka rasmiga ahi waa kee waa ka culimadu ay idiin sharxayeen shuruudihiisa waa loo sheegay soomaha shuruudihiisa shuruudaha xijaabku waxa weeyaan inuu yahay mid jidhka o dhan wada qarinaya oo qoortii iyo gacmihii iyo cagihii iyo hadday bannaan yihiin sida hooyooyinka qaarkood dee cawradii way muuqataa ha fahmeen hooyooyinka waaweyni in gacmuhuna cawro yihiin caguhuna cawro yihiin qoortanina ay cawro tahay markaa jidhkii waa inay wada qarisaa ruuxii dumarka ahayd intan gacmaha laga faraxasho iyo wejiga mooyaane waa inaanu ku dheganayn inuu nafis ka yahay hablo badan oo da-yar baa imika moodada iyo styleka ay samaynayaan isku dhajiya waa xaaraan waa inuu fadfaad noqdaa mid waasica waa inuu thakiin yahay mid adag oo waxaynu uga jeednaa wax cawrada ka muuqanaya aanu jirin jidhka macnaha waa inaanu sifaynaynin mid qarala waa inuu yahay xoogaa qara ah oo jidhkii qarinaya waa inaanu dharkii ragga u egayn waa inaanu udgoon lahayn dumarka gaalada dharkoodii waa inaanu u egayn thawbu shuhra waa inaanu ahayn maro isha soo jiidanaysa oo dadka kaa dhex saaraysa oo lagugu xaman karo shuruudaha noocaasee 7 ah ama 8 ah
ayaa uu leeyahay laakiin wax sheegaya inuu isku yaalay inuu kala go'an yahay ma jiro waana isku joogana wuu noqon karaa mid laba qabana wuu noqon karaa kalarka iyo midabka waxaa muhiim ah shuruudaha ku jira inaan dhalaal lahayn oo wirwirayn oo mid bilic loo isha soo jiidanaya waa inaanu ahayn laakiin midabku doonayo uu yeelan karaa shuruuduhuna kuwaas weeye xijaabka rasmiga ah su-aasha kale waxay hilibka walqasha ma in la qaydhinka lagu qaybiyaa fiican mise in xaafadda lagu cuno fuqahadu waxay u badinayaan xaafadda lagu cunaa fadli badan waana iska sii fiicantay dadka qaarkoodna in qaydhinka wax laga siiyo laakiin waxyaabaha ku fiican guriga in lagu cuno intoo lagu kariyo ayaa wanaagsan bay leeyihin fuqahadu waayo farxad weeye dadka kuu soo kordhaybaad ayaa lagu farxayaa marka in hal goobtii farxaddii la isugu yimaado oo lagu duceeyo oo dadkii ay wax ku cunaan ilaan dadka halkan imanaya way ducaynayaan akala dacaamakum alabraar wa afdara cindakum usaa'imuun wasallad calaykum almalaa'ika taasaa fiican ee qaydhinkoo qura in lagu kala diro waxa ka fiican in wax lagu kariya bay leeyihin meesha su-aasha kale ah sekada dahabku hadduu yahay kan xaawalaydu ay isku qurxinayaan intuu doonaba ha gaadha ee seke ma leh kii laakiin kaydka ah hadduu yahay sekaa lagu leeyahy waxaynu uga jeednaa dumarka qaarkood baa dhowr bedladood iska leh 2-3 bedladood bay leeyihin midun bay gashadaan inta kalena way iska taallaa intaa taallo waa laga bixinayaa boqolkiiba 2 badh boqolkii garaam 2 garaam iyo badh ayaa laga bixinayaa dahablaha yaqaana sida loo sakeeyo laakiin ruuxa dumar inta ay mar xidhanayso inta caadiga ay ku xidhanayso dhegaha iyo qoorta gacmaha fargalladii shuuliyadii haba waaweynaadeen dhib ma leh hadduu laakiin dee israaf ku jiro oo khalkhaalkii cagaha iyo beelkii iyo waxaa waa laga bixinayaa waa siyaada kaas almuhim markaynu soo ururino kan la isku qurxinayo waxba si ka laga bixin maayo qowlka jumhuurka culimadu u badan yihin laakiin ka kaydkaa waa laga bixinaya iyo bedladaha iska yaala wallahu aclam